وشوقي هذا اليوم هس waxaa la ogeysiinayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee fanka xiiseeya ee ku nool magaalada Nairobi in la qabo doono showgii afraad ee hadal iyo hees kaasi oo doorkan marti uu ku yahay fanaanka qaaliga ah ee markaa fanaanka waqtigan lagu jecel yahay fanaaniinta Soomaaliyeed ay waayaha dambe sida weyn looga daba dhacay Maxamed Xasan Xuseen la foolay oo magaalada Nairobi show markaa qiimo badan ku qaba doono wuxuuna habeenka showga u dhacay oo ciyaari doonaa heesiisa caanka ah ee dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sida weyn ay u jecel yihiin baliisoo qabo heeska qaaliga ah adduunka dhan taan ka eega jira wayga aamusto ha la foole adduunka dhan ka eega jira wayga aamusto eeda jacayl afku hadalka محمد حسن حسين لفوله يا هبيكا يا ولي بهيسكا يا dabacsanida hadalkiyo deganaantu inay yahay waa waxa dareenkiyo nafta damaca galiyay habeenka ayaa fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la foolay isagoo idin hortaagan aad ka boqo doontaan dabacsanida hadalkiyo deganaantu inay yahay waa waxa dareenkiyo nafta damaca galiyay kaga doorta qayrka عليو دوادا لغايها عظيم تلدير جيران هلكن كاتريما دقوان كجالا maahan oo kaliya heesaha ee heesa qaaliya oo fanaanku caan uu ku yahay dadweynaha Soomaaliyeedna si weyn ay u jecel yihiin ayaa habeenka alfanaan Maxamed Xasan Xuseen la foolay nasiib ay u yeesheen dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi in uu ciyaaro iyagoo waliba daawanaya laakiin habeenka waxa garab taagnaa doona alfanaan Maxamed Xasan Xuseen la foolay qaar kamid ah hobalada caanka ay ku sugan magaalada Nairobi haddaba goobta showgu ku dhacayo waa City Hall oo ah goobtii showgu hore aan ku qabanay waxa uu ku yaalaa toonka waxuna dhacayaa showga 17 bisha October 2009 waxay ku aadan tahay maalin sabti ah habeen axad soo galayso qiimaha tigidhada waa 1 shilin Kenya oo kaliya waxaan imika ka heli kartaa Somali Total Music X jacjal studio ku yaala wadada markaa alxaq balaas ee xaafadda Islay magaalada Nairobi ama gacal studio dhabarka ku hay Hotel Barakat ee magaalada Nairobi wixii tala iyo tusaale oo showga ku saabsan ama fikirkaada qaabka showgu u dhacayo fadlan noogu soo hagaaji ciwaanada shaashada ka muuqda wixii tafaasiil dheeraadana dabcan waxaad kala xiriiri kartaan isla taleefanada shaashada ka muuqanaya haddaba dadweyne ogaadi waa showgii ugu qaalisanaa ee fanaanka lagu jecel yahay waqtigan aynu taaganahay uu ku qabanayo magaalada Nairobi dadweynaha Soomaaliyeed ee Nairobi ku sugan nasiib ay u yeesheen haddaba uu ku dhaafin tigidhadana way si qaaliyoobayaan ee imikaba waqtiga ku kashin ay yihiin hore u doono waxa si gaar ah kooxda hadal iyo hees ay ugu caawinaysaa dadweynaha tigidhada doonaya cidii markaa aan garaneyn goobaha aan tilmaanay in shaashada taleefanada ku qoran ay la soo xiriiraan si iyagoo guruuba tigidhada meesha ay joogaan lagu keeno